Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. xilliyada ka mid ah waxa tuulo yar ku noolaa wiil la oran jiray Arjun. Maalmaha ka mid ah ayuu ka helay shirkadiisa fursad uu dibadda uga safro, kadibna diyaaradda ayuu soo raacay. Kursiga ayuuna soo fariistay. Kursiga uu fariistayna waxa dhinac fadhiyay gabar aad u qurux badan. Arjunna wuu aamusay, wuxuuna eegay gabadha. Cabaar ka bacdi, cabaar magaca qurxay. Waxay ku tiraahday, haddii aan magacayga kuu sheego, magaciigu waa Anjali. Arjun isna wuxuu yiraahday, magacaygu waa Arjun. Shirkadayda ayaana ii dirtay safar shaqo oo dibadda ah. Intaas kadibna waxaan rabaa inaan dalxiis yar sameeyo. Arjun iyo gabadhiina sidaas ayuuna wada sheekaysigoodii ku bilowmaday. Waxayna wada sheekaysteen muddo dheer ilaa ay noqdeen saaxiibo wanaagsan. Kadib markii ay wada hadleen waqti dheer, Anjali waxay bilowday inay hurdo dareento, kadibna way seexatay. Halka Arjun uu dareemay caajis. Kadibna daaqadda diyaaradda banaankeeda ayuu wuxuu bilaabay inuu fiirsado si uu u daawado muuqaalka cirka iyo meelaha ay diyaaraddu dul marayso. Arjun wuxuu arkay muuqaal aad u qurux badan oo banaanka diyaaradda ah, laakiin si lama filaan ah, Arjun wuxuu arkay naag ruuxana timaheeda oo ag maraya banaanka daaqadda diyaaradda. Waxay u muuqataa inay tahay timaha weyn ee ruuxana leedahay. Arjun wuxuu bilaabay inuu cabsado oo isla sheekaysto. Tani waa wax cajiib ah, sidee suurtagal u tahay in naagta ruuxanta ay halkan timaado? Kadibna Arjun wuxuu go'aansaday inuu hurdada ka kiciyo Anjali si uu ugu sheego waxa uu arkay. Markii uu toosiyay, wuxuu si degdeg ah ugu sharaxay wixii uu arkay. Anjali waxay tiraahday, bal naftaada ka taxadar, waxaad u muuqataa mid aad u daalan. U fiirso Arjun, waxaad u baahan tahay nasasho, naso, cabsidana iska dhaaf. Arjun wuxuu yiraahday, runtii waxaan arkay naag ruuxan ah oo aad u argagax badan. Anjali waxay tiraahday, safarka dheer iyo daalka faraha badan kaa dhigaya inaad waxyaabo khaldan aragto. Haddana inuu nasano, indhahana isku xir oo seexo. Markuu bilaabay inuu seexdo, qof codkii ayaa ka soo yeeray daaqadda agteeda isagoo leh, maanta lagama yaabo inaad iga badbaadaan. Codkaasina wuxuu ahaa mid cabsi leh oo si qarsoodi ah loogu dhawaaqay. Arjun wuu naxay markuu maqlay codkaas. Si dhaqso leh ayuuna madaxa u rogay, kadibna wuu kacay. Wuxuuna bilaabay inuu fiiriyo hareeraha, kadibna wuxuu bilaabay inuu qayliyo isagoo leh, yaa weeye qofka naga nixinaya, bilis horteeda imow. Qayladiisana waxaa maqlay dadkii ag fadhiyay oo dhan, waxayna u jeesteen dhankiisa iyagoo eegaya. Mid ka mid ah dadka diyaaradda saarna ayaa yidhi, wax dhiba miyaa ku haysta? Istaji, aniga ayaa ku xalinaya hadday dhibaato ku haysato. Laakiin Arjun weli wuu yaaban yahay. Anjali waxay tiraahday, Arjun waxaad mar kale arkaysaa waxyaabo aan jirin ee seexo. Laakiin markan Arjun wuxuu garowsaday in waxa uu arkay ay run yihiin. Wuxuuna bilaabay inuu istajiyo, wuxuuna ku fikirayay inuu iska aamuso. Waqti yar kadib, Arjun wuxuu mar kale eegay dhankii daaqadda diyaaradda. Markii uu dibadda fiiriyay, wuxuu arkay wax la mid ah raad weyn oo duulimaad ah oo ifaya. Waxay u muuqataa sidii raad aad u ballaaran oo diyaaradda la socda inuu jiro. Arjun ayaana wuxuu dareemay in diyaaradda ay gariirayso, taasoo cabsi gelisay isaga. Arjun wuxuu bilaabay inuu isla sheekaysto isagoo leh, marka hore waxaan u maleynayaa inaan si khaldan wax u arkay, balse hadda waxaan arkay ama aan dareemayo waa xaqiiq. Maxaan sameeyaa hadda? Haddii aan qof kale u sheego, wuxuu ii maleynayaa inaan waalanahay, laakiin sidee u hubiyaa wixii aan arkay? Markaas ayuu arkay wax kale oo ka sii yaabiyay. Waxa uuna arkay shay weyn oo dul wareegaya diyaaradda agteeda. Shaygaas oo ahaa naagtii ruuxanta ahayd, oo ahayd mid ka weyn diyaaradda lafteeda. Wejigeeduna wuxuu ahaa mid aad u cabsi badan. Naagta ruuxanta ahayd ayaana waxay ku duulisay cirka, iyadoo si lama filaan ah uga fogaanaysa diyaaradda. Arjun wuxuu dareemay nafis iyo deganaan, isagoo leh, nasiib wanaag way tagtay naagtii ruuxanta ahayd, mana soo noqonayso. Laakiin Arjun ayaa haddana wuxuu dareemay cabsi. Wuxuuna bilaabay inuu fiiriyo daaqadda si uu u hubiyo inaysan mar kale soo laabanayn iyo in kale. Laakiin si lama filaan ah wuxuu arkay in naagtii ruuxanta ahayd mar kale soo dhawaanayso. Kadibna naagtii ruuxanta ahayd ayaa liqday diyaaraddii, waxayna gelisay caloosheedii. Kadibna diyaaradda banaankeeda mugdi ayaa buux dhaafiyay. Qof walba oo diyaaradda saarnaa wuu argagaxay. Dadkii diyaaradda saarnaana waxay bilaabeen inay qayliyaan oo ay dhahaan, maxaa dhacaya? Duuliyihii ayaa ku dhawaaqay, fadlan isdejiya, xasilloonidana ilaaliya, wax walba waa hagaagsan yihiin. Arjun ayaa yidhi, maxaa weeye wax halkan ka dhacaya? Arjun markii uu dibadda fiiriyay, waxa uu arkay naagtii ruuxanta ahayd oo qoslaysa oo dhahaysa, lagama yaabo inaad iga badbaadaan maanta. Mid idinka mid ah ma dhaafi doono oo dhammaantiin waan in wada cuni doonaa. Dhanka kale, Arjun dhinac kasta oo diyaaradda ka mid ah wuxuu la noqday madow oo keliya, waxbana muusan arkayn. Wuxuu isweydiiyey sababta ay diyaaraddu madowga la noqotay. Arjun ayaana wuxuu bilaabay inuu dareemo cabsi aad u fara badan. Caloosheedu waxay dareemaysaa xanuun, qofna ma badbaadin karo xaaladdan oo kale.
Waxaan isku dayayaa inaan isdejiyo, laakiin ma fududa. Arjun ayaana bilaabay inuu isweydiiyo su'aalo la yaab leh isagoo leh, haddii aan ka badbaado naagta ruuxaanta ah, mis aroosi doonaa Anjali, ilmana ma dhali doonaa? Markay diyaaraddu cirka kusii socoto, xaaladdu waxay noqotaa mid ka sii xun oo xawaare sare leh oo leh argagax badan. Dadkii diyaaradda saarnaana waxay bilaabeen inay dareemaan in diyaaraddu xaalad adag ku jirto.